Waxaa ka da'ay magaalada Muqdisho roobab lixaad leh kuwaas oo xiray ama ciriiri ka dhigay isku socodka waddooyinka magaalada Muqdisho. Dadweynaha iyo gaadiidka isticmaala badi waddooyinkan ayaa had iyo jeer ku dhibban marka ay roobabku ka da'aan magaaladan. Maamulka u xilsaaran wax ka qabashada dhibaatadan soo noqnoqotay ayaa ku mashquulsan la dagaalanka mukhaadaraadka iyo burburinta goobaha habeenkii lagu caweeyo. Dad badan ayaa u arka in maamulka gobolka Banaadir uu ku fashilmay wax ka qabashada baahiyaha muhiimka ah ee bulshada ku nool magaaladan. Halkan hadda idiin muuqata waa waddada Dan-wadaagaha ee isku xirta degmada Wadajir iyo magaalada inteeda kale. Waa mid ka mid ah waddooyinka ugu muhiimsan isku socodka dadka iyo gaadiidka. Waxaa isticmaala gaadiidka iyo dadka ugu badan ee u kala goosha degmooyinka gobolka Banaadir. Waxaa muuqata in howlwadeennada ka shaqeeya gobolka Banaadir ay yihiin dad aan karti u lahayn qabashada shaqooyinka loo diray ee ahaa horumarinta magaaladan caasimadda ah. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe, like and share. Waxaa ka da'ay magaalada Muqdisho roobab lixaad leh kuwaas oo xiray ama ciriiri ka dhigay isku socodka waddooyinka magaalada Muqdisho. Dadweynaha iyo gaadiidka isticmaala badi waddooyinkan ayaa had iyo jeer ku dhibban marka ay roobabku ka da'aan magaaladan. Maamulka u xilsaaran wax ka qabashada dhibaatadan soo noqnoqotay ayaa ku mashquulsan la dagaalanka mukhaadaraadka iyo burburinta goobaha habeenkii lagu caweeyo. Dad badan ayaa u arka in maamulka gobolka Banaadir uu ku fashilmay wax ka qabashada baahiyaha muhiimka ah ee bulshada ku nool magaaladan. Halkan hadda idiin muuqata waa waddada Dan-wadaagaha ee isku xirta degmada Wadajir iyo magaalada inteeda kale. Waa mid ka mid ah waddooyinka ugu muhiimsan